maantay qorshahan halkan ugu nimi waxa weeye inaan arrimo badan cadeyno oo guddiga Cawaale ee magaalada Galkacyo waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto Cawaale Stadium meesha ka soo bilowday waxaan soo bilownay December 2017 waxaan soo wadnay ilaa 18 ilaa 19 runtii bulshada reer Puntland meel fiican bay ka istaageen inuu maaragtay garoonka Cawaale maanta heerka hadda uu mariyo soo gaaro arintaasna waa arin aad loogu farxo guddiguna shaqo wanaagsan bay soo qabteen waxa jirtay arrimo ku saabsan garoonka Cawaale iyo lacag la siiyay 220 kun oo dawladda federaalku siisay runtii ugu madcelinayna dawladda federaalka lacagta ay garoonka ugu baaqday ama ay siisay waxaan rabaa guddiga Cawaale maxaan u sameysanahay oo maxaan nahay guddiga Cawaale waa guddi kamid ah horumarinta ee Puntland wuxuuna mar kasta hoos taagan yahay Puntland wuxuuna mandate-kiisu yahay maalinta garoonkaas Cawaale uu dhamaado guddigaas jiritaankiisa waa dhamaad qorshihiisu ma ahayn qorshe loogu talagalay in maaragtay Puntland lagu burburiyo ma ahayn in maaragtay ay noqonayso meel maaragtay Puntland laga soo galiyo problem uu keenayo guddigan dhismihiisu wax ka wuxuu ahaa inuu garoonkaas dhismihiisa ka qayb qaato oo dhameystiro waxaana meesha yaala wax kale ma aha guddigan guddi siyaasad u sameeysan ma aha waa guddi hoostaga dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sidoo kale guddigu wuxuu waxa kamid ah dad kala duwan oo dhalinyaro ah dhamaantood waxay ka shaqeynayeen in garoonka Cawaale dhismihiisa uu shaqeeyo maanta waxaan maraynaa marka in la yiraahdo guddigu wuxuu dhabarjibin ku noqday dawladda Puntland waxaan cadeynaynaa inaan anagu Puntland deesnahay waxaan cadeynaynaa inaan marnaba ku noqon karin dhabarjibin Puntland waxaanu cadeynaynaa in aanu wax kasta oo garoonkaas Cawaale u yahay aan ula daba fariisanayno dawladda Puntland maadaama garoonkan anagu shakhsi ahaan ma leeyahay shakhsiyaad baan isku yimid oo guddi ah oo soo isxilqaansan maartay garoonkan u istaagay maanta waxaan cadeynaynaa marka garoonkan inuu leeyahay reer Puntland ay leeyihiin in Galkacyo leedahay waxaan ugu dambeyntii baaq u dirayaa shacabka Puntland iyo dawladda Puntland shacabka waxaan leenahay guddiga Cawaale wuxuu ka banaan yahay ama wuxuusan shuqul ku lahayn wax siyaasad ah oo Puntland lagu carqaladeynayo dawladda Puntland waxa uu sheegnaa garoonka Cawaale iyo guddigiisu waxay hoos yimaadaan waa dawladda Puntland waxay ka amar qaataan waa dawladda Puntland waxaanu anagu fududeynaynaa inaan hadafkii iyo ujeedadii dawladda Puntland ay lahayd inaanu qayb ka noqono si loo gaaro horumarka loogu talagalay ama loo dhisay dawladda Puntland waxaan leeyahay dhamaantiin aan isku xirnaano aan ka wada shaqeyno midnimada Puntland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan cadeynaynaa inaanu wax kale oo aan Cawaale ahayn aysan shaqadeedu iyo mandate-kaygu aysan ahayn wax kasta oo garoonka Cawaale laga qabanayana waxaan uga dambaynaynaa dawladda Puntland heer degmo heer gobol iyo wasaaradda waxaan ku shaqeynaynaa amaawiirta ka soo baxda dawladda Puntland wax kasta oo dawladda Puntland ay raali ka tahay baan anagu ku go'naa guddiga Cawaale ma ahan guddi cid kale ku adeegan kadho ma ahan guddi cid kale ay maarta u farbuuqi kadho anaga hadafkayagu wuxuu ahaa horumarinta garoonka Cawaale maadaama ay balwadeedii tahay oo sports aan ahayn oo soo jireen aan ahay oo dadkii iyo dhalinyaradii gobolkan ka soo jeeday garoomo cagaaran intay arkeen wada qaxeen ayaa waxaan u toosnay in garoonka la dhiso ma aha in la siyaasadeeyo ma aha in la carqaladeeyo ma aha in wax kale la geliyo anaga wax kasta iyo amaawiir kasta oo ka soo baxda dawladda Puntland maan diyaar u nahay lacagtii loo soo diray federaalka ka timid akoonka bay ku jiraa maamulkeeda iyo dhismaheeda iyo cid maamulaysa mar walba waxaan u hogaansanahay maamul gobolka degmada iyo wasaaraddeena wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha waa nin u soo jeeda horumarka dhalinyarada waa nin u soo jeeda dhismayaasha garoonka aad baan uga mahadcelinaynaa mar kastana waa la xiriirnaa haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu safar ku yimaado garoonka uu yimaado oo dhalinyarada iyo guddiga la shiro anagu waxaan cadeynaynaa inaanu ku soconno halku dhigii madaxweynaha oo ahaa tayo iyo tiigsi madaxweynaha waxa ka go'an dhalinyarada iyo sportiga inuu hormariyo ma aha in la nacsiyo waa in lagu dhiirigeliyaa anagu waxaanu mar walba diyaar u nahay horumarinta iyo ka shaqeynta Puntlandnimadan waa mid muqadas ah ma aha mid aan cid kala tashanayno ma aha mid cid kale ay noo soo mari karto waxaan cadeynaynaa haddaan nahay dhalinyarada Galkacyo gobolka Mudug dhismaha garoonka Cawaale inaan mar walba u hogaansanahay
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland iyo madaxweynaha amaawiirta ka soo baxda iyo dhammaan xukuumadda Puntland anagu Puntlandeys baan nahay iyadaana wax kuna iyadaana wax nala ku siiya ama nala ku ogoliya wax alaala wixii siyaasad ah oo Puntland ah dad baan wakiilana anagu guddigaas kaliya u baan sida Burhaan sheegay maalinkii garoonkaas u dhamaado waxaan ku wareejinaa dowladdan ku wareejinaa inta hadda ay socotana oo dhismaha fayska saddexaad la marayo aad cagaftii iyo dhammaan kambanigii kibaarka oo dhisi lahaa ay diyaar yihiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay qayb ka ahaato hawshaas aakhirkeeda iyo dhamaadkeeda in hawshaas soo jeedo waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay garoonkan anagu waxaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug waxaan u istaagnay garoonkan kubadda cagta Cawaale September 2017 herar badan buu garoonka soo maray haddana gabagabuu marayaa waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu sanadkan dhamaadkiisa garoonkaas oo cagaaran oo qurux badan inuu noqon doono garoonkii ugu horeeyay Puntland oo garoon cagaaran uu noqdo madaxweyne Danina wuxuu sheegay mar waan la kulanay inuu garoonkaas qofka ugu horeeyo kubad ku ciyaar uu noqon doono insha Allah saasna waan rajaynaynaa qofkii furo garoonkaas qurux badan inuu noqdo hadii Ilaahay idmo annagu waxaan nahay dad Puntland waa muqaddis ayadaan wax ku nahay ayadaan waxa weeye ku joognaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo fayska saddexaad dowladda qayb weyn inay ka qaadan doonto hadii Ilaahay idmo xaq kasta ay ahayd xaq dhaqaale xaq talo xaq waxa weeye hogaamin hadii Ilaahay idmo insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo garoomada Puntland saas oo kale inay noqon doonaan insha Allah garoomo cagaaran oo dhalinyarada waxa weeye horumar iyo meel qurux badan ay ku dheelaan garoonkaana waxay wax ku noqonaysaa haduu qurux badnaado Puntland bay u noqonaysaa haduu fuul xumaadana Puntland buu fuul xuntahay cid kale oo maanta wax u qaban karta ma jirtaan Puntland ahayn 220ka dowladuna si waa ku mahadsantahay laakiin wixii ka badnaa oo ka horeeyay lacagtaas yaanisi Puntland baan dowladda ma siin iyagana wali aan taageersanahay waxaana ka hoos nimaadnaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada baan hoos nimaadnaa iyadana xukunta waxaan kale waa saxaafad dadkana waxa laga waala wax la Facebook iyo baraha bulshada laga waala dad baa iska soo fariistay waxay rabaan sheegayaan anagu waxa uma joojinay laakiin warkeena cadda oo saxda ah saakan ku sheegnay anaga Puntland baan nahay Puntland baan ahaanaynaa مسؤولينta isboortiga Puntland baan nahay waligeena waan ahaanayna insha Allah waxaan leenahay madaxweyne dadkaagi baan nahay khilaaf ma jiro waxa ma jiro saan hadda ka hor adoo muxuu musharaxa noogu timi ku soo dhaweeyay ma haddana ku soo dhaweeyay haddana garabka ugu taagan